madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waxaa maanta sidoo kale xafiiska madaxtooyaha ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socda shirkadda shidaal iyo tamareed ee lagu magacaabo ajyaal taasoo laga leeyahay dalka sacuudi carabiya. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu si dirar u soo dhaweeyay ugu horeyn mas-uuliyiinta sare ee shirkadaasi kuwaasoo jamhuuriyadda jabuuti kusoo gaadhay booqasho howleed oo shaqo. kulankaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay intaasi kadib iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dowladda sacuudi carabiya, waxaana labada dhinac ay wadaageen horumarinta fursadaha maalgashi ee ka jira jamhuuriyadda jabuuti iyo ka faa'iidaysiga shirkadaasi ajyaal gaar ahaan xagga tamarta iyo sidoo kale waaxyaha shidaalka. wafdigaasi ka socda shirkadda ajyaali laga leeyahay dalka sacuudi carabiya ayaa waxaa horkacaya gudoomiyaha golaha maamul ee shirkadaasi ajyaal. kulankaasi xagga jabuuti ayaa waxaa ka qayb qaatay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka gudoomiye abubakar cumar xadi, waxaana kulanka lagu soo bandhigay dhaqaajinta mashruuca dhisme ee warshada deegaanka dameerdoog laga hirgelinayo ee shirkadaasi ajyaal ay maalgelisay, taasoo warshad ballaaran oo safaynaysa shidaalka. waxaana warshadaasi loogu talagalay in halkii maalin ay kasoo baxdo in ka badan 300,000 oo baariil, waxaana warshadaasi maalgelinteedu ay ku baxaysaa in ka badan 12,000 milyaar oo doolarka maraykanka ah. waxaana kulanka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xubnaha shirkadaasi mar kale ay si gaar u xaqiijiyeen iskaashiga jabuuti iyo dowladda sacuudi carabiya in uu si gaara muddooyinka u dambeeyay u xoogaystay oo labada dhinac guulo kala duwan ay ka gaadheen.